Asalaamu calaykum asxaabtayda igu xiro waan islaamay meel kasta dunida ka joogtaan waxaan leeyahay waxay tahay wanaagsan qoraalka meesha ugu qoran oo u jeedaan shaashada sida nagiga muuqata sidee u noqon kartaa qof la jecel yahay sidee u noqon kartaa qof la jecel yahay oo bini'aadam oo ku nool dhulka korkiisa wuxuu xiiseeyaa inuu noqdo qof la jecel yahay in la qadariyo oo la tixgeliyo goorta uu xiriir la sameynayo dadka kale hadda waxaa jirta qaab dadka aad ku soo jiidan kartid oo aad ku jeclaan karaan si aad u heshid tixgelin iyo jacayl intaba iyo sida waxaa ka mid ah dhoola cadeynta dhoola cadee asxaabtaada aad ku jeceshahay waxay kuu soo jiidaysaa wadnaansho dadka ku jeclaan doonaan oo dhib la'aan ah bilow salaam qiimo leh waxaa ka wanaagsan ma jirto in aad salaam ku bilowdid qof kasta oo aad la kulmaysid maxaa yeelay salaanta qiimaha leh waxay badinaysaa jacaylka ay dadka ku qabaan ayay badinaysaa bixi hadiyad qaali dhaqanka ugu fiican ee ka dhaxayn kara laba qof oo jecel sidoo kale waa dhaqan ugu dardaarmaya nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee inuu isku hadiyeeyaan waxyaabo qaali ahayn intaba aan isu jeclaan aan isu hadiyeyno waxa is jeclaysiinayaan hadiyada jacaylka sii kordhinaya hadal yar iyo aamusnaan iska jir in aad hadalkaada badisid aad kor u qayliso markaa sheekeynaysid asxaabtaada dhex fadhiya taas waxay dhimaysaa jacaylka lagu qabo adiga maalidani waxay ku mahmaaday hadalka badan ee ka tiri hadal badan haan ma buusho Soomaali ayaa ku mahmaaday waa in aad iska ilaalisaa udayin in aad warka ka dhex gashid qofka la hadlayo nabigeena ma sameyni jirin hadal goynta oo qof isagoo hadlayo Soomaalida waxaa dhahdaa hadal lama wadaagay caana la wadaagaa Soomaali ayaa ku mahmaaday min isqurxinta iyo nadaafada nabigeena naxariis korkiisa ahaatee soo ma dhihin Ilaahay wuu qurxoon yahay wuxuu jecel yahay quruxda iyo wax qurxoon oo idil mid kale u sheeg qofka aad jeceshahay in aad jacayl u qabtid qof aad u qabtid jacayl waxaa habboon in aad wargelisid jacaylka u qabtid maxaa yeelay nabigeena wuxuu yiri sallallahu calayhi wasallam naxariis korkiisa ahaatee qof jeclaatid ugu tag gurigiisa una sheeg in aad jeclaatid ayuu nabigeena sallallahu calayhi wasallam uu nagu dhahay in haddaba ma tahay qof in aad jeclaatid aad gurigiisa ugu tagtid aad u sheegtay maya dadka hadii oo maxalli joogaan lagama helayo marka waa in aad qofka aad jeceshahay si wanaagsan naxariis si walaalnimo aad ugu sheegtid si fiican adiga oo jecel oo dar alla u jecel inaad u sheegatid asxaabta igu xiran muuqaalkeen halkaas ayuu ku egyahay in aad ka heshaan ayaa filayaa waxaan tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wixii oo fariinay dhinaca commentiga noo reeba asxaabtiina la sii wadaaga si asxaab fara badan u aragto iloobin subscribe in aad noo saartaan dhiirigelintan waa xaggeena like-tan yaana laga hilmaamin waxaan leeyahay sidaas iyo fi amaanillah wixii fariinay dhinaca commentiga noo reeba waana mahadsantiin daawashada muuqaalka